xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee cud siyaasi maxamuud cali saleebaan ramaax ayaa xukuumadda madaxweyne muuse biixi uga digay in ganacsiga Somaliland cid gaar ah kooto lagu xidho waxaanu xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ku dhaliilay in ay indhaha ka qarsanayaan sharciyada iyo qawaaniinta u taala Somaliland. Master Ramaax waxa uu hoosta ka xariiqay in shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom xaq u leedahay in ay keento adeegga internetka ee badda hoos mara ee loo yaqaan fiber optic kaasoo xoogayuhu iftiimiyay in cid gaar ah uu kooto ugu jiro. xisbiyada qaranku khaasatan kuwa mucaaradkii waxay u taagan yihiin inay ku ilaaliyaan sharciyada xukuumadda. taasina waa tahay inuu samaysanay xisbiyada mucaaradka maaha malalihin rag iska hadlaya oo waxaan sharciyada waafaqsanayn ku hadlaya. waxa weeyaan ganacsiga dalku waa xor. haddii loo ogolaan lahaa haddii dadka qaar afku ku xanuunayay haddii loo ogolaan lahaa keybelka waxa uu noqon lahaa in shirkadaasi ay runtii wax badan oo qiimo leh u soo kordhiso dalka. waxaanaanu leenahay xaq bay u leeyihiin waana arrin distoria. waxaanu leenahay taasi iyada haddii laga gabanayo ama cid ay dhibayso ama xusbi ha noqoto ama shaqsi ha noqotee waxa weeyaan wixii xaq loo leeyahay ganacsiga dalku waa xor ayaan leenahay waana arrin distoria. Telesom ama gudoomiyaha Telesom waxa uu soo hoyay dalkan magac iyo karaam uu soo hoyay. runtii waan hambalyaynayaa wixii wanaagsan qofka soo qabta ee dalkan wax ku soo kordhiya wuxuu xaq u leeyahayna inaanu ka hadalno waajib baanu u leenahay annagaan cid gaar ah tilmaamaynin. waxa weeyaan ganacsiga dalku waa xor. dawladda kumaanaana flagaadayn waa qodob distoria. waxaanaanu leenahay xukuumadda kulmiye in badanoo horaa la iska dhaga tiray sharciyada dalka ha lagu soo noqdo sharciyada dalka. waxa uu sharci darro ku tilmaamay mashaariica uu madaxweynaha Somaliland ka dhagax dhigay kuwa kalena uu ballan qaaday intii uu ku jiray safarkii ku marayay madaxweyne biixi gobolada bariga Somaliland. mashaariicda uu gobolada ku ballan qaaday inuu madaxweynuhu ka fulinayo inkastoo aanay ahayn mid sharciyada waafaqsan. ma aha mid sharciyada waafaqsan. qorshuu dalkani leeyahay gobol walba qorshe 5 sanadooda ayaa u qoran. waay qorshii loogu dari waayay ama miisaaniyadda loogu dari waayay burca 2 biriish laga sameynaya ma diidayo xusbigani in burco laga sameeyo 2 biriish iyo 3 biriishba. laakiin marka horeba inay miisaaniyadda ku caddaato oo ay ahaato wax qorshaha dawladda ku jira oo nidaamkii xalaasha ahaa ee bidhka lagu qaadanayay ee gobolka bidhka lagaga bixinayay inay ahaato ayaanu runtii jecelahay. taa laftigeeda waxaanu leenahay madaxweyne inaad ku soo dabaasho mashaariicdaasi si isla xisaabtankooda iyo hirgelintoodu ay u noqoto mid dalka iyo dalka wax anfacdo. waxaan waayaana ku ahay markaasaa leeyahay waxa laga hirgeliyey xukuumaddii hore kulmiye 562 ceel baa laga hirgeliyey jamhuuriyadda Somaliland. 562 ceel maanta waxa ka shaqeeya waxaan ka badnayn 74. waxay ku timi mashruuc ama wasiirka maaliyaddu meel marayo oo yiraahdo halkan baan ceel ka qodaya ama uu marayo wasiirka waxbarashadu oo yiraahdo iskuul baan halkan maanta ka bahlaynaya oo aan qorshihii sax ahayd iyo sharciyadii dalka aan waafaqsanayn. sidaa daraadeed waxaan ka digaynaa mashaariicda madaxweynuhu bixiyey inay noqdaan qaar sharciyadii waafaqsan oo bidhkooda lagu qabto gobolada uu madaxweynuhu ugu ballan qaaday si gobolada dadka jooga ay runtii uga faa'iidaan. aan imika Hargeysa la isu soo dabayaacin oon dabadeedna lagu bixinin qaabab runtii xaaraana. taana aad iyo aad baanu uga digaynaa. mar walba waxaanu u taaganahay wixii wanaagsan ee xukuumaddu qabatana inaanu ku taageerno wixii qaldan ee aanu aragnana inay sheegaan xusbiyada qaranku. Maxamed Bashiir Nuur Greek Ariel TV Hargeysa.